بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرالك الصومالية محكمة قبل كبنادر قيبت عقابتها واحدة تشجع ما أنتوا تاريخ تهي لبعتني أفرتي بشي سديدات لبعض كونية لبعتن كواحد محكمة كل واقع ساعة حكم ككيس تعودات كعقابتها النبر كيس يهي بقول أفرتني سديد لبعض كونية لبعتن ك oo eedeysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo dacwadooda la soo dhageysanayay 14 fadhi dacwadeed xukunka maxkamadda eedeysanaha koowaad Cabdilaahi Xaashi Cali ina Khadiijo Xaaji Maxamed Xirsi 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 363 366 375 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,173,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunku waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheekh Nuur Maxamed kontoneriye laba jir ah ku dhashay Xamar degan wada jir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 363 366 375 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 366 375 waxaana ku xukuntay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 59,173,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina Xaawa Maxamed Nuur 30 jir ah ku dhashay Xamar degan waa bari ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Health Promotion C4D ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysna qodobada 241 363 366 375 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 375 waxaana ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,173,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed afar eedeysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliimo Qaasim Cabdi 34 jir ah ku dhashay Xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV and AIDS ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysnaa qodobada 241 366 366 375 iyo 376 lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 29,575,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183 xukunka waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne muddo 5 sano ah sida ku xusan qodobka 101 faqradda koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanaha shanaad Naciima Cabdilqaadir Maxamed ina Xaliimo Cabdi Sheekh 34 jir ah
ku dhalatay degan xamar ahna maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada reproductive health ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku weysay dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay eedeysanada waxaana dib ugu celisay xorriyadeeda 6 eedeysanaha lixaad Axmed Aadan Maxamed ina Faaduma Maxamed 34 jir ah ku dhashay Gado degan Hodan ahna agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysnaa qodobada 241 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku weysay dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xorriyadiisa eedeysanaha toddobaad Cabdulqaadir Weheliye Afrax ina Jimco Gaafo Kulmiye ahna agaasimaha waaxda saadka iyo adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobka 241 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliya maxkamaddu waxa u cadaatay in uu yahay agaasimaha waaxda daaweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxaana ku weeyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xorriyadiisa eedeysanaha sideedaad Faarax Yuusuf Maxamed ina Luul Geele Maxamuud 34 jir ah ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda waxa uu cadaatay inuu yahay madaxa qaybta wacyigelinta talaalka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ku weeyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xorriyadiisa eedeysanaha sagaalaad Sumeeya Axmed Cismaan ina Duniye Cabdulle Cali 27 jir ah ku dhalatay xamar degan howlwadaag ana xisaabiyaha mashruuca TB-da ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysanayd qodobada 241 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku weeyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxaana dib ugu celisay xorriyadeeda maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanayaasha damaanadii ay ku joogeen dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman sida uu sharcigu tilmaamay wabillahi tawfiiq maxkamadduna noo xidhan